Asalaamu calaykum. Waxaan sameyneynaa wifi hacking anagoo isticmaaleyno tool oo Kali ku imaado oo la dhaho wifi kaasoo qabanayo handshake kadibna dadka ku jira maxaa la dhahaye wifi ga ku jira mise isticmaalayo wifi gaas ayuu off sameynayaa wuu ka saarayaa kadibna markii labaad ay kusoo laabanayaan inay qadkaas kusoo laabtaan isku dayayaan ayuu password ka qabanayaa. Wordlist-ga aan u isticmaaleyno wuxuu ku jiraa users.share.wordlist marka meesha ayaan galeynaa kadibna bilowga markaad Kali soo degsato oo wuxuu yahay wuu compress gareysan yahay marka waa unzip gareyneynaa anagoo isticmaaleyno command-ka ah gu zip kadibna aan siineyno waa inaa leedahay sudo waa inaa ahaataa mise root waa inaa ahaataa si aad u unzip gareyso kadibna waa kaasaa passwordka ayuu ku weydiinayaa oo Kaligaaga markaa geliso hadda waad isticmaali kartaa rogu.txt waa password aad u badan oo Kali ku imaado oo hackerska ay ku diyaariyeen waa passwordada ugu badan dadka ay ka dhigtaan maxaa la dhahaye password ahaan kadibna toolka ayaan run gareyneynaa anagoo dhaheyno wifi.wba kadibna dict oo laga soo gaabiyo dictionary kadibna no bm kid kadibna slash waxaan siineynaa directory-ga uu yaalo wordlist-ga isticmaaleysid waa aniga waxaa users.share.wordlist.rogu.txt //.killna waa leenahay isticmaalaa si uu toolkan u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay inaa haysato wifi adapter oo la dhaho TP-Link mise mid TP-Link-kaas asaga ugu raqiisan oo waa $9 ama $10 bedel ayaa kasoo gadan kartaa waa mid kalena oo jiro oo la gado $78 iyo meelahaas oo ka xawaaro badan iyagoon wax jebinayana aa jiro oo la dhaho alpha adapter labadooda waa soo gadan kartaa haddii aan qorno IPA waxaa arkeysaa in uu noo soo qabaneynin wifi adapterka aan gelinay waxaan tageynaa setting-ka waxaan ka dhigeynaa bridge markaan ka dhigno waxaan tageynaa qaybta USB-ga kadibna waxaa soo gelineysaa wifi adapterka aa soo gelisay kadibna qaybta USB-ga aa tagaysaa kadibna wifi adapterka aa soo gelisay ayaa dooraneysaa magaciisa hadda markaa Kali kusoo laabato aad dhahdo IPA hadda waxaa arkeysaa wifi adapterkii aa gelisay oo kusoo qabanaya meeshaan kadib toolkan hadda waa isticmaali kartaa haddana toolka ayaan run gareyneynaa toolka markaa kooda run gareyno wuxuu noo soo qabanaya error noo soo qabanaya errorkaas oo ah in aan soo download gareysano package-ga toolka ku shaqeynayo waa isla soo dejineynaa insha Allah ka hor intaan toolka waan soo download gareysanin kooda bilowgii markaan aan run gareynay maxaa la dhahaye wifi-ka wuxuu istaajinayaa network-gaaga waa hadda tool ma soo dejin kartid si aad marka network-gaaga usoo daartid waxaa isticmaaleysaa sudo systemctl restart network manager soo download gareysataa laba tool uu u baahan yahay keliya labada tool ayaan soo download gareysaneynaa toolkeena wuxuu noo soo qabanayaa error kale ah error weyn ma ahan wuxuu ku leeyahay keliya markaa run gareyso toolkan wifi-ka waxaa diidaya mise conflict dhacaya in process kale
uu shaqeynaya. Processkaas oo kuu sheegayaa PID-giisa. Kadibna waxaa leedahay command kala furanaysaa, command line kala furanaysaa kill.slash.pid. Waxaad iska hubinaysaa in uu wayland ilaa hadda kuu soo qabanayo. Waa run garaynaysaa. Kadibna wuu kuu shaqeynayaa insha Allah. Wuxuu kuu soo qabanayaa Wi-Fi-yada kuu dhow oo dhan. Hadda aniga kan taleefankayga bisa ii dhow oo daaran. Kadib lambarkiisa oo 1 ah ayaan dooranayaa. Kadibna shaqada asiga ayaa qabanaya oo ah inuu fiiriyo dadka ku dhex jira, uu soo helo halaha user ee ku dhex jira, kadibna uu ka saaro. Kadibna intay ku soo xirmayaan markuu saarayo inuu handshake-gaas qabto. Kadibna userada wordlist-iga aan siinay inuu hal hal ugu fiiriyo ilaa password-ka uu sax ka noqdo. Haddii password-ka siduu rabo ha u adkaado, haddii wordlist-igaas uu password-kaas ku dhex jiro wuu ku fududeynayaa. Waa brute forcing. Waa kaasaa wuu noo soo qabtay hadda. Password-kana waa 1 2 3 4 5 6. Waa mahadsantihiin.